daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar mobilka furo daawo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya dagaalkii dhuusamareeb isla markaasna waxaa la sheegayaa hoobiyaal la isku garaacayo si kastaba ahaatee hoobiyaal ku dhacaya xaafado ka tirsan dhuusamareeb iyo dagaalka oo weli socda ayaa wararkii ugu dambeeyay kasoo baxaya waxaa weli socda dagaal culus oo barqanimadii maanta ka dhex qarxay ciidamada dowladda federaalk ee kuwa ahlu sunna ee ku wada sugan magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug isla markaasina ay kala hogaamiyaan sheekh shaakir iyo master qorqoor dagaalka oo markii hore ka bilowday xarunta NGN nawaaxiga madaxtooyada galmudug ayaa la sheegayaa inuu haatan saameeyay inta badan magaalada dhuusamareeb oo jahwareer weyn uu ka jiro isla markaasina waxaa la leeyahay meelaha qaarkood dhaawacyadii la geeyay isbitaalka uu xiran yahay maadaama dadka isbitaalka jooga dhakhaatiirta gebi ahaan bay ka carareen sida wararka qaar ay sheegayaan halkaasi dhaawacyo la geeyay inay daryeel la'aan u geeriyoodeen waxaa gebi ahaanba joogsaday isku socodka dadka iyo gaadiidka ee magaalada iyadoo laga kala cararay goobaha ganacsiga iyo suuqyada waaweyn isla markaasina gudaha magaalada dhuusamareeb dad ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa warbaahinta u sheegay in madaafiic hoobiyaal ah ay ku dhaceen xaafado ay degan yihiin dad shacab ah waxayna wararku intaasi ku darayaan in rasaas wiifta ah ee aad u xoog badan ay saamaysay magaalada gebi ahaanteeda cirifka isla markaasina waxyeelo shacabka aad u badan ay soo gaartay dhowr hoobiye ayaa la xaqiijiyey inay goor dhoweyd ku dhaceen dhabarka dambe ee hotel Madiina welina lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalka oo weli socda inkastoo ay jiraan warar sheegaya in meydad iyo dad dhaawacyo qaba la geeyay isbitaalka magaalada sidaasna la sheegay in isbitaalka shaqaalihi ay ka wada carareen maadaama hoobiyaashii iyo rasaastii ay kusoo dhaceen qaarkeedba shacab fara badan ayaa xalay ilaa maanta ka barakacay magaalada dhuusamareeb halka qaar kalena ay ku go'doonsan yihiin xaafadaha marka ay awoodi waayeen inay ka baxaan guryahooda dagaalka hareerahooda ka socday awgeed mana jiro ilaa iyo hadda war ku saabsan dagaalkani oo ka soo baxay ahlu sunna iyo garabka galmudug hase yeeshee saaka aroortii ayay ahayd markii madaxweyne qorqoor uu ku eedeeyay ahlu sunna wal jamaa inay soo weerareen madaxtooyada iyo ahlu sunna wal jamaa u jawaabtay oo tiri ayaga ayaa weerarka soo qaaday maadaama gaarigayna ay marka hore soo weerareen sida dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay oo update ah ku dhawaad 200 oo askari oo wata taliyaha ciidanka harmacadka ayaa la filayaa inay dhawaan gaaraan garoonka diyaaradaha ee dhuusamareeb ee ka degaan si ay u xoojiyaan ciidamada dawladda ee ka dagaalamaya magaalada dhuusamareeb waa wararka ugu dambeeya hadda laga helayo qabanqaabada garoonka magaalada muqdisho ciidankani ayaa ka soo anbabaxay magaalada muqdisho waxaana la ogeyn kaalinta ay ka qaadan doonaan dagaalka u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kuwa ahlu sunna ee ilaa iyo xalay sida goosgooska ugu dagaalamaya gudaha oo iminkadanba dagaalka uu socdo sida wararka lagu sheegay si kastaba ha ahaatee waxaanu soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyay iyo khasaaraha halkaasi ka dhashay laakiin weli wararka waa uu socdaa oo dagaalka waa uu socdaa waxaa la leeyahay iminka muuqaal aanu arkayno xabado toos ayaa magaalada ka dhacaya si kastaba ahaatee xabadahaasi oo ay ka dhex muuqdaan dad carruur ah isla markaasina muuqaalka aan soo qaadan karin ayaa la arkayaa dad shacab ah qaarkood inay soo duubayaan xabad si toos u dhacayso ama gaandhiri ama xabada si toos u ridayaan si kastaba ahaatee wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa daawada nala joog oo nala daawo warbixinadii ugu dambeeyay newska update ah Kenya oo isku diyaarinaysa duulaan dagaal oo ay ku qaado gobolka Gado iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo digniin culus u dirtay markaasna wararkii ugu dambeeyay saaka ayaa soo baxaya cabsi xoogan ayaa ka taagan magaalada beled xawo ee gobolka Gado isla markaasina duleedka degmadaasi ay fariisina ka sameysteen ciidamada cusub oo ka tirsan ciidamada Jubbaland ee daraawiishta isla markaasina ay soo hore u soo galbiyeen ama ay soo marsiyeen ciidamada Kenyaanka ah meelo badan oo ay shabaabka haystaan isla markaasina taasi sharci darro lagu tilmaamay ciidamada hubeysan ee gaadiidka dagaalka ayaa ka soo buux dhaafiyay tagay degmada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose kuwaasi oo maanta gaaray degmada beled xawo ee gobolkaasi ayaa dhaqaaqyo ciidan ka wada duleedka beled xawo sida ay noo xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ku sugan degmadaasi xubno ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa kulan dhiirigelin ah maanta la qaatay ciidamadaasi cusub ee Jubbaland ay geysay gobolka Gado kuwaasi oo ciidamadan xiriir kula dardaarmay inay gacan adag ku qabtaan ammaanka degmadaasi ama deegaanada dhaca xuduudda Soomaaliya ee Kenya gobolkaasi Gado ugu weyn tahay beled xawo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado ee dowladda Soomaaliya Cusmaan Nuur Xaaji ayaa sheegay in ciidanka soo gaaray duleedka magaalada beled xawo ay yihiin kuwa dhawaan 50 askari oo lagu soo qaaday gaadiidka ay ka mid yihiin hal gaari oo dagaal ah waxa uuna xusay inaysan awood u lahayn qaadida weerar ay kula wareegaan magaalada beled xawo oo ay ku sugan yihiin ciidamada booliiska harmacad iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya ee militariga gudoomiyaha degmadaasi ayaa gudoomiye ku-xigeenka
oo sii hadlayay ayaa sheegay in dowladda Kenya ay gacan ka geysatay xiisadda iyo abaabulka dagaal ee laga dareemayo gobolka Gedo asagoo xaqiijiyay in ciidanka Kenya ay gobolka Jubbada Hoose ay ka soo galbiyeen ciidamada Jubbaland isla markaasina ay soo marsiiyeen deegaano badan oo ay al-shabaab maamusho oo ka tirsan gobolada Jubbada Hoose iyo Gedo arrintaasi oo ku tilmaamay fal ka hor imaanaya saaxiibtinimada Soomaaliya iyo Kenya isla markaasina sharciga u yaalay ay gebi ahaanba jebisay dalkaasi Kenya sargaalkan uu hadlayay maamulka gobolka Gedo ayaa sheegay in aysan dowladda dhexe ka haysan amar uga hortagaan ciidanka Jubbaland waxaana xusay in ciidamada dowladda federaalka ay ku howlan yihiin sidii loo xaqiijin lahaa amniga degmada Beled Xaawo uuna nasiib darro ku tilmaamay falalka ka socda dhanka dowladda Kenya isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya la doonaya inay tallaabo cad ay ka qaadato wararka ayaa sheegay in madaxweynaha Jubbaland uu amar ku bixiyay in gacanta Jubbaland lagu soo celiyo maamulka degmada Beled Xaawo isla markaasina ciidankiisa ay la wareegaan gacan ku haynta degmadaasi oo muhiim u ah isku socodka xuduudda Soomaaliya iyo Kenya maadaama halkaasi dana waaweyn ugu xiran tahay madaxweyne Axmed Madoobe sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaare Khayr iyo madaxweyne Farmaajo ayaa halkaasi nafta ag dhigay isla markaasina ciidamo aad u tababaran geeyay dhinaca kale bankiga adduunka oo soo saaray war cusub oo ka farxiyay dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina 30 sano kadib arrin cusub soo celiyay bankiga adduunka ayaa shalay sheegay inay caadiyeeyeen xiriirkii ay dowladda Soomaaliya la lahayd bankiga adduunka 30 sano kadib bankiga adduunka waxa uu sheegay in tani ay ka dhigan tahay inay fursad u furto dowladda Soomaaliya fursadaasi oo ay ka mid yihiin inay Soomaaliya hesho deeqaha uu bixiyo bankiga adduunka iyo inay wada shaqayn la lahaato dhammaan laamaha bankiga adduunka si ay u soo jiidato in Soomaaliya la maalgashto gacanna looga geysto deganaanshaha iyo horumarka waddanka isla markaasina deeqaha oo bixiyo bankigaasi ay Soomaaliya toos u hesho Soomaaliya ayaa ka rajo qabto in laga qafiifiyo inta badan deymaha lagu leeyahay iyadoona loo eegayo deymaha laga qafiifiyo wadamada faqiirka ah ee deymaha culus lagu leeyahay barnaamijkaasi oo loo soo gudbiyay oo loo soo gaabiyo HIBIC ayaa lidii tallaabada bankiga adduunka ayaa timid 24 saac kadib markii hay-adaha lacagta adduunka ee IMF ay iyaguna sheegeen inay heshay yabo ku filan inay hay-addu dhinaceeda deymaha ka qafiifiso Soomaaliya IMF waxay sheegtay inay yaboha oo dhan 334 milyan ka heshay in ka badan 100 xubnood ama 100 dawladood oo ka tirsan caalamka bankiga adduunka waxa uu sheegay in tallaabadani ay tahay mid muhiim ah waxa uuna sheegay in warsaxaafadeedka bankiga adduunka inay qayb ka qaateen sidii Soomaaliya looga caawin lahaa inay halkan soo gaarto taasi oo ay qayb ka ahayd lacag dhan 250 milyan oo dollarka Mareykanka oo deeq hordhac ah si loo dejiyo horumarka waddanka uu sameynayo ee dhinaca isbedelka iyo bixinta adeegyada bankiga adduunka waxa uu sheegay in Soomaaliya ka faa'iideysan doonto deyn cafinta ay helayso marka la raaco deymaha laga qafiifiyo wadamada faqiirka ah ee deymaha culus lagu leeyahay deymaha la filayo in badankooda laga qafiifiyo Soomaaliya ayaa ah 5.3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah si kastaba ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo dhaweysay arrintan isla markaasina ku sheegtay mid dalka uu hore ugu soconayo maadaama dalka Soomaaliya uu yahay dalalka ugu faqiirsan isla markaasina hadda soo kabanayo bankiga adduunka ayaa sidoo kale sheegay in ay ka faa'iideysan doonaan Soomaaliya maadaama bankiga oo dawladaha faqiirka ah uu maalgeliyo isla markaasina deeqaha ay bixiyaan ay dhinac ka heli doonaan dhinaca kale dalkii labaad ee Afrika oo laga helay kiiskii ugu horeeyay ee coronaviruska dalka ku yaala waqooyiga Afrika ee Nigeria ayaa lagu arkay qofkii ugu horeeyay oo ku dhacay cudurka coronavirus isla markaasina noqonaya dalkii labaad ee Afrikaan ah oo cudurkaasi laga dhaxlo bukaankan ayaa ka soo jeeda dalka Talyaaniga wuxuuna ka shaqeynayaa dalka Nigeria isagoo Talyaaniga ka soo laabtay 25kii bishan isla markaasina mar allaala markii uu soo degay laga helay mas'uuliyiinta waxay sheegeen inay qofka uu ku dhacay cudurkan corona oo hadda lagu daaweynayo isbitaalka ku yaala magaalada Lagos isla markaasina xaaladiisa ay wanaagsan tahay dowladda Nigeria ayaa sheegtay in diyaar garowga buuxa ay sameysay si looga hortago cudurka waxaana kamid ah xarunta xaaladda degdega ah isla markaasina dad badan hadii soo ritaan si halkaas loo dhigo
waxay mas'uuliyiinta bilaabeen inay baaraan rakaabka ka imaanaya dalalka uu saameeyey coronaviruska isla markaasina dibadda ah. in ka badan 80,000 oo qof ayaa ku geeriyootay cudurkan coronavirus waxaana ku faafay ilaa 40 dal, waxaana Nigeria ay noqonaysaa dalkii labaad ee qaaradda Afrika ee laga helo cudurkani, waxaana qof qaba cudurkani loogu arkay dalka Masar sidoo kale. si kastaba ha ahaatee xaaladda cudurkani ayaa adduunka ku faafay isla markaasina meel kasta ayuu gaaray. si kastaba ha ahaatee dowladaha Talyaaniga iyo Faransiiska ayaa iminka la taalaadhacaya maadaama halkaasi dad badan ay ku dhaceen isla markaasina dad aad u fara badan oo ilaa dhowr iyo 10 halkaas oo ku geeriyoodeen. si kastaba ha ahaatee cudurkani ayaa ilaa iminka la soo saarin daawadiisa, maadaama la la'yahay daawadiisa. khubarada caafimaadka adduunka ayaa iminka u fadhiya mar kasta u fadhiya siday u heli lahaayeen daawadii lagu xakameyn lahaa cudurkani.